waa maxay cloud computing waa computer aad isticmaalaysid oona markaas ku ag oolin marka computerkaas waxaad ka ijaarinaysaa cloud service providerada adduunka ugu waaweyn waxaa kamid ah waa Microsoft Azure, AWS iyo Google Cloud saddexdaas un kaliya ayaa hadirtaan loolanka ganacsi ee cloud computing iskula jira cloud computing markii la hirgelinayo waxa loo hirgeliyaa waxay tahay deployment model base ama service model base ayaa loo hirgeliyaa deployment model base ka waxa kamid ah waxay tahay waa private cloud, public cloud iyo hybrid cloud. Private cloud waxa laga wadaa waxay tahay shirkad ay khaas u tahay oo waa private cloud ayaga iskale. Public cloud kuna waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo qof waliba adduunka ku nool ayaa access u leh oo waxaan tagi karnaaba waxay tahay website-yada cloud service providers sida AWS, Microsoft Azure kadib waan iska diiwaan geli karnaa kadib waan isticmaali karnaa service-kooda dhan oo wixii lacag oo nagu soo baxana waan iska bixinaynaa. So cloud computing marka waa pay as you go model. wax lacag oo laga rabo ma jirto marka hore just waxaad bixinaysaa waxay tahay wixii aad isticmaashay. So haddaad isticmaasho 10 daqiiqo oo kale 10kaas daqiiqo lacagtooda ayaa bixinaysaa computerkaas. haddaad isticmaasho hal bil ayaa bixinaysaa lacagteeda. marka waa pay as you go model weeyaan. wuxuuna ku saleysan yahay waxay tahay economy on scale oo laga wado inta aad u baahato ayaad ka isticmaalaysaa. ma aad u baahnid inaad hadda ka soo qaado kale server awood badan inaad isticmaasho uma baahnid oo kale ka soo qaad. waxa u baahan tahay server awood yar. serverkaas awood yar ayaa ijaarinaysaa laakiin mustaqbalka waxa dhici karta waxay tahay inaad u baahato mid awood badan. So waxaad sameynaysaa waxay tahay inaad isla serverkii inaad mataqaana server ka weyn aad u wareegto. Service based model ku marka saddex ayaa ugu caansan waa infrastructure as a service, platform as a service iyo software as a service. marka infrastructure as a service maxaa laga wadaa? Infrastructure as a service waxa weeyaan waxa u tagaysaa waxay tahay cloud service provider sida Microsoft Azure oo kale hadda ayaa u tagaysaa ama AWS ama Google Cloud. dan kadib waxa ka ijaarinaysaa waxay tahay waa network-gooda ka ijaarinaysaa. waxa ka ijaarinaysaa waxay tahay storage-ka oo waxa la wixii hard drives iyo waxa wax ku kaydin lahayd servers-ka ayaa ka ijaarinaysaa iyo virtualization-ka oo virtualization hypervisor-ka ayaa ka ijaarinaysaa. kadib adiga waxa lagaaga baahan yahay waxay tahay inaad la timaado operating system-ka iyo licensing-ga aad ku isticmaali lahayd middleware softwares kana la timaado running time-ka waxa la wixii software oo u baahan tahay si u shaqeeyo system-ku data-daada inaad la timaado iyo applications-ka guud inaad la timaado. marka hadaad eegto waxa lagu leeyahay waxay tahay infrastructure as a service marka uu isticmaalaysid waxa ay maamushaaba waxay tahay shirkadu oo aad ka ijaarinaysid waa waxa la wixii network-ina, servers-ka, storage-ka, virtualization-ka. laakiin inta ka koraysa adiga aan maamulo so waxa la wixii ka yimaado oo dhan sababta you manage ayaa lagu yiri. waxa la wixii ka yimaado dhib ah ama dhanka security-ga ah responsibility-gaas ama xilkaas adoo madaxa ka saaran sababta waxa jira wax la yiraahdo shared responsibility. waa responsibility la wadaagayo weeyaan. so waxa adiga xil ka saaran yahay waxay tahay wixii operating system ka bilowda ilaa iyo kor. waxa uu shirkadda aad ka ijaaratayna oo xil ka saaran yahay waa wixii ka hooseeya. so hadirtaan server hadii uu damo oo kale maanta oo kale adiga waxba kaama gelin serverkaas damay in samayskiisa iyo qarashkiisa iyo waxaas oo dhan hadii network qad ka baxo hadii storage-ka uu buuxsamo waxaas waxba ka shirkadda ayaa ku diyaarisay oo aad ijaaratay. waxa noogu xiga waxay tahay waa platform as a service. platform as a service marka running time-ka ilaa iyo network-ga inta u dhaxaysa ayaa shirkaddu ka ijaaraysaa. so network-ga ka ijaaraysaa oo waxa la wixii firewall-isa, waxa la wixii router-isa, switch-isa waxaas oo dhan waxay ka ijaaraysaa oo kale waxay tahay storage-ka oo data-da ama ha u baahnaa 1 gigabyte ama 1 terabyte u baahnaa ama 10 terabyte u baahnaa isku mid data-da. okay shirkadaas waa ka ijaarin kartaa waa jeebkaaga ku xiran tahay. servers-ka ama hal server isticmaal ama 10 server isticmaal waa isku mid shirkadaas waa diyaar. waxay kaloo ka ijaarayaan waxay tahay waa virtualization-ka. waxay kaloo ka ijaarayaan waxay tahay OS-ka operating system-ka. waxay ka ijaarayaan waxay tahay middleware-ka. waxay ka ijaarayaan waxay tahay running time-ka. wax alla wixii loo baahan yahay oo marka ayaa mataqaana laga marka u baahan tahay laga ijaarayaa. kadib adiga waxa lagaaga baahan yahay waa application-ka iyo data-daada inaad la timaado. so waxa platform as service badana loo isticmaalaa waxay tahay development-ga oo kale ayaa loo isticmaalaa. so hadirtaan qofka programmer-ka aho ma u baahna inuu ka walwalo serverka configuration-kiisa iyo network-ga iyo waxaas just waxa loo baahan yahay inuu focus ku ahaado coding-kiisa sababtoo waa continuous integration, continuous delivery, CD wax la dhaha jira continuous integration, continuous delivery. marka asagu waa inuu focus ku ahaada taas oosan ka walwalinin operating system-ka ku jira iyo compatible ma leeyahay code-kayga waxaas oo dhan ka walwala maaha.
just wuxuu la imaanayaa baa waxay tahay waa datadiisa iyo wuxuu la imaanayaa applicationska uu ku isticmaali lahaa. waxaa kaloo jira baa waxay tahay mid kale oo loo yaqaano software as a service. software as a service marka applicationka ka bilaabo ilaa iyo networka waxa dhan waxaa xilka saaran yahay baa waxay tahay waa shirkadda, oo adiga waxaa lagaaga baahan yahay oo keliya waxay tahay usernamekaaga iyo passwordkaaga inaad la timaado. sida example oo kale hadirtaan waxaad leedahay email baad leedahay, emailkaas waa gmail oo kale ka soo qaad. gmail markaa login ku tiraado datadaada iyo serverkay ku jirta iyo network oo serverkaas ka tirsan yahay iyo operating systemka serverkaas waxaas oo adigu ma taqaanid, waxbana kaama gelin, just waxaad isticmaalaysaa baa waxay tahay waa username iyo password waad gelaysaa sooma. so waa software as a service weeyaan emailkaad isticmaashid. waxaa kaloo kamid ah waxay tahay Microsoft 365 oo kale waa software as a service. waxaa kaloo kamid ah waxay tahay Salesforce oo kale. waxaa softwareada adduunka jiro oo hadirtaan software as a service waa ay leeyihiin oo waad isticmaalaysaa waad ijaaranaysaa. marka adiga waxba kama walwalaysid security iyo waxaas oo dhan, just waxa u baahanto kaliya baa waxay tahay in aad la timaado username iyo passwordkii aad login ku samayleed iyo internet access and that's it. marka cloud computing haddaan soo koobno waa computer aad isticmaalaysid oona markaas ku ag-oolin. computerkaasna waxaa iskale baa waxay tahay shirkadaas ayaa qalabka hantida badan gelisay maaragtay data center badan adduunka ku leh. hadday wax ka qaldamaan waxaas oo dhan ayagoo madax ka saanay adiga waxba kaama gelin, just waa imaaw isticmaal ijaarkana iska bixi haddaa ijaarka bixi weysana waxaa lagaala laabanayaa baa waxay tahay wax la wixii access oo meeshaas baa waxaa ku weynaysaa datadaada. haddaad u baahan tahay marka cloud computingka inaad barato foundational knowledge badan baa ka horeeya oo qofku waa inuu yaqaanaa horta computerkii marka uu hor yaallo sida u samayn lahaa u isticmaala waa inuu yaqaanaa inta uusan u gudbinin computer aan ag oolinoo ka fog. marka haddaa booqato hurba.com hoyga tababarka injineerada mustaqbalka aad ka baran kartid cilmiga computerka qaybihiisa kala duwan adoo jooga goob kasta iyo goor kasta. marka waxaa ku diyaara baa waxay tahay waxaa ku diyaara waxay tahay ilaa iyo 165 koorso oo luqadda afka Soomaaliga ku baxda ayaa ku diyaara oo aad maaragtay ka baran kartid cloud computing kuna khaasatan ilaa iyo 10 koorso waan ka haynaa oo isku xiran, ama ha noqoto dhanka maaragtay foundational levelka ama ha noqoto maaragtay expert levelka iyo system administrator ahaan. waxaan filayaa marka anay adigu hadirtaan si fiican inaan concept guud uga helnay cloud computing iyo waxa uu yahay.